magacaygu waa Joe Xataab. ¡A la fila! Xeradan military aan u socono waa xerada labaad ee ugu weyn Koonfurta Ameerika. And the most secret place a camera can enter. Tababarka halkan ka socda boqolkiiba 70 dadka tababarkan way iskaga baxaan sida uu adag yahay daraadeed. This is the toughest survival and combat training in the world. Waxaana loo aqoonsaday inuu yahay tababarka ugu adag adduunka. Maanta waxaan noqon doonaa askari, iyaga ayaana ka mid ahaan doonaa muddo 24 saac waana la tababaran doonaa. There is a war. You need to be prepared. Tababarka Lancero waa tababarka ugu adag guud ahaan dunida. Lancero course is the toughest one in the world. Kani waa Lancero School. Waa kan bixiya tababarka ugu adag uguna halista badan. Tababarkan kaliya ma siinayaan Kolombiyaanka, balse dunida inteeda kale ayaa looga kala yimaadaa. Askarta qaar ayaa ka soo tababar doonta Mareykanka, Asia ilaa iyo Yurub, iyagoo raba inay tababarkan adag ay ka qaataan iskuulka Lancero, kaas oo ka dhacaya buuraha, webiyada, hawada iyo duurka intaba. Marka aad gaari ku safrayso, waxay indhahaagu qabanayaan buuro oo dhinac walba kaga hareeraysan wadooyinka. Waxaana safar 4 saacadood qaadanaya uga soo ambabaxnay magaalada Bogota si aan u gaarno xerada. Waxaan hadda sii galaynaa xerada. Waxaa jirta oraah ay halqabsi ka dhigtaan oo ah ninkii Lancero ka soo badbaada kama cabsado geerida. Nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you. Lancero. Waa kan albaabka weyn ee Lancero. Cabsi badan ayaan dareemayaa. Waxaan rabaa in maanta aan askari noqdo. Waxa ugu horeeya ee aan mari doonana waa baaritaan. Si wax walba oo aan gudaha loo ogoleen banaankana looga reebo. Qalab walba oo ay fasaxaanna nambar tixraac ah ayay u sameynayaan. Gudaha xerada waxaa kaliya ku badbaadaya ninka xooggan. Salam alaikum. Salam. Okay. Halkani waa xerada ugu weyn ee militariga. Waxaana dhihi karnaa waa magaalo ku dhex taala magaalo kale. Cabirka ay xeradan ku fadhiso darteed, xeradan gudaheeda waxaa laga heli karaa wax walba oo aad magaalka uga baahan lahayd, sida moolalka, agabka militariga, agabka caadiga ah iyo supermarketyo. Waana xerada ugu tababarka adag adduunka. Waxaan mar walba diyaar u nahay inaan ka dagaalanno buuraha iyo saxaraha si aan u difaacano shacabkeena. Protect the civilian population. You are going to feel the real feeling of the Colombian soldier. Waxaana maanta dareemi doontaa inaad tahay askari Kolombiyaan ah. Tababarkan ma lahan halbeeg lagu tilmaamo oo sheegaya sida uu adag yahay. Lancero wax hadda ka bilowday ma aha bixinta tababarada adag. Waana iskuul ay qadarin u hayaan ciidankii ka soo baxay. Lancero waa nidaam tababareed oo ay gaar leeyihiin militariga Colombia. Adeegiisa daraadeed wuxuu caan ka noqday dunida inteeda kale. Qayb walba oo tababarkan ka mid ahna halisteeda ayay wadataa. Waxaana qofka laga dhisayaa jir ahaan iyo maskax ahaan intaba. Run. Come on. Quickly. Hurry up. Move. Waxaana sidan iigu bilowday tababarkeygii 24 saac ka koobnaa. Bilowgiiba wuxuu tababaraha ku sameynayaa inuu dedejiyo isagoo ku qaylinaya dhaqaaq oo dhaqso. Run. Wuxuu u muujinayaa inaysan muhiim ahayn in maanta ay ugu horeyso tababarka iyo in kale. I don't care. Welcome to the real world. Welcome to the Colombian army. Waxaa loo sheegay in tababarka ugu horeeya uu askarta la qaadan doono waxa ay sameynayaanna uu la sameeyo. Waxaa marka hore looga bilaabay aalamiito iska fudud. Kadib waxaa la baraa sida uu dhulka ugu dhici lahaa marka uu baarashuut kaga soo boodo diyaaradaha. Aalamiitooyin isxigxigay kadib waxay markan baranayaan sidii ay dhulka ugu dhici lahaayeen iyagoo uusan wax dhaawac ah soo gaarin xilliyada ay ka soo boodayaan meelaha dhaadheer. Ku celis dheer kadib waxaa lagu amray inay boodboodkan sameeyaan iyagoo ku dhawaaqaya Condor hasta el fin. Istaag iyo nasiino looma ogola. Kadib Joe waxaa lagu amrayaa inuu garabka ku qaado sheegan laga metelay askari. Labadan kalena waxay soo kala qaadi doonaan calanka iyo kii la suri lahaa. Qof walba inta loo dhiibay isagoo wada ayuu la ruuclaynayaa. Bartii loo asteeyay markay tageenna Joe wuu iska dhigay askarigii uu xambaarsanaa. Calankana bartaas ayaa la taagay. Waxayna safka kula biireen askarta kale. Edbinta nafta waa cajiib. Waxna siinaah looma ogola. Markanna waxaa qof walba la barayaa sida ugu saxan ee uga soo boodi lahaa diyaaradaha.
Joe oo markiisa la gaarayna biyo uu cabo ayuu dalbaday balse waa laga diiday. Wuxuu sidoo kale ka cabsanayay in lugaha uu ka jabo maadaama uu siday culays balse in sidaas oo dhan aysan halis u ahayn ayaa loo sheegay. Isku daygii koowaad wuu qalday oo sidii la rabay isuguma tuurin. Mar labaad ayaana lagu celiyay. Intaas kadib wuxuu soo saarsaday askarigii uu horey derbiga ugu tiiriyay. Markay soo gaareen meeshay ku qaadan lahaayeen tababarka xiga, Joe wuxuu si dhuumaalaysi u cabaa biyihii loo diidanaa. Waxay markan ka soo boodi doonaan tower dhirirkiisu yahay 14 mitir. Joe wuxuu daawadaa kuwa ka horeeya sida ay u boodayaan. Si fiican ayaana loo dhiirigeliyaa. Markii uu intaas ka soo gudbayna waxaa loo sheegay inuu u bilaaban doono orod 10 kilomitir ah. Sidaas ayuuna gabalka ugu dhacay. Habeenkii lama nasanaye waxaa loo qalab qaatay orod kale oo uu la socdo miisaan 10 kiilo ah. Ninkan 7 sano ayuu askari yahay waana 24 jir. Orodka habeenkii wuxuu kan maalinkii kaga duwan yahay in xargo la isugu xirayo si midkoodna uusan u harin. Waxaana la ordayaa 10 kilomitir. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Alto! We made it. We made 10 kills. Hadda ayaana fasax u qabnaa inaan seexano, balse hurdo dheer ma seexanayno. Waxaana soo kacnay aroor hore. Waxaana meesha ka bilaabanaya isla aalamiitadii aan shalay sameynay. Mil. Qaybtan waxaa si gaar ah loo siiyaa ciidanka ka howlgala badaha. Waxaa la wada quraacdaa markii la gaaro 7 subaxnimo. Quraac kadibna si toos ayaan u guda galnay tababarkeenii maalinlaha ahaa. Markanna waxaana la barayaa sida aan webiyada uga tallaabi lahayn. Waxaa qof walba loo dhiibayaa qalab dhammaystiran. Tababaradan waxay saamaxayaan inaad isbadbaadiso xilliyada adag iyo goobaha kala duwan, hadday noqoto duur ama meel biyo ah. We made it. Markanna waxaa loo gudbi doonaa sida diyaaradaha looga soo boodo, kaasoo ka adag qaabkii hore. Dherer ahaan meeshan waxay gaaraysaa 40 mitir. Waxaana meeshan lagu tababartaa intaan la gaarin in diyaaradaha saxda ah laga soo boodo. Gudaha xeradan waxaan ku aragnay iskuulo fara badan oo uu mid kasta bixinayo tababar gaar ah. Kan wuxuu ciidanka barayaa sida ay uga dhex dagaalami lahaayeen luluqyada iyagoo is ilaalinaya. Kani waa iskuulka Lancero. Waa iskuul ay aad ugu faanaan. Iskuulka Lancerana halkan ayuu ka bilowday. Balse tababarka saxda ah duurka ayaa lagu qabtaa, halkaas oo lagu tijaabiyo askarta halkan lagu soo saaro. Haddii muuqaalkan uu daawasho badan helo, waxaan idin soo gudbin doonaa tababarka qaybtiisa xigta. Fadlan muuqaalka like gareey, wixii aragtiyana commentiga igu reeb.